Kitaabada taariikhda waxay inoo keediyeen mid ka mid dardaarnada ugu cajiibsan ee uu Aabbe siiyey wiilkiisa oo suldaan ah. Dardaaranka Suldaan Cusmaan bin Ertugrul uu siiyey wiilkiisa Orkhan, kaasoo ahaa suldaanka labaad ee Cusmaaniyiinta. Dardaarankaasna wuxuu noqday wax ay ku dhaqmaan Cusmaaniyiinta. Suldaan Cusmaan bin Ertugrul wuxuu yidhi sidaan: wiilkaygiiyow, waxaan kaaga digayaa inaad ku mashquusho wuxuusan Alle ku amrin. Haddii maamulka culays kaaga yimaadana, la tashiga culummada ka dhigo meel loo noqdo. Wiilkaygiiyow, shayddaanka yuusan kugu dhagarin ciidankaaga iyo hantidaada. Waxaana kaaga digayaa inaad ka fogaato culummada diinta. Wiilkaygiiyow, waad ogtahay hadafkeennu inuu yahay raaligelinta Alle, jihaadkuna uu diinta u yahay iftiin. Wiilkaygiiyow, annagu ma nihin kuwa u dagaalama maamul jaceylka iyo qof jeclaysiga. Annagu Islaamka ayaan ku noolaanaynaa, isaga ayaan ku dhimanaynaa. Ogowna wiilkaygiiyow, faafinta Islaamka iyo sharafta iyo hantida muslimiinta oo la ilaaliyo inay ammaano kugu tahay adiga, Allana uu ku weydiin doono. Wiilkaygiiyow, anigu waxaan aadi doonaa xagga Rabbigay, waxaana kalsooni ku qabaa inaad noqon doonto hogaamiye caadil ah, Alle dartiina u jihaada, diinta Islaamkana faafiya. Wiilkaygiiyow, waxaan kugula dardaarmayaa culummada ummadda, qiimay oo qadari, taladoodana qaado, sababtoo ah waxaan wanaag ahayn ku amri maayaan. Saaxiibaday iyo ilmahaygana waxaan kula dardaarmayaa sarreynta Islaamka, kuna joogteeya jihaadka Alle dartii ah. Qabsada calanka Islaamka oo u shaqeeya Islaamka mar walba, sababtoo ah Alle addoon daciif ah oo anigoo kale ah ayuu awood u siiyey furashada waddamada. Wiilkaygiiyow, ma jiro qof aan geeri arkaynin, aniguna waan dhimanayaa, dowladdaana adiga ayaan kaaga tegay. Dardaarankaas kadib, Cusmaaniyiintu waxay aad u qiimayn jireen culummada Islaamka iyo cilmiga, jihaadka iyo mujaahidiinta, horumarka iyo maamulka. Awooddooduna waxay gaartay ilaa Yurub, ilaa 3 qaaradood ee xilligaas.